barnaamij silmi oo ay mas'uuliyiin sameynayeen iyo mujtamaca Muqdisho oo dhib badan tirsanaya iyo firaaqa dastuuriga ee dhacaya in gacan ciidan loo adeegsaday oo ciidankii loogu talagalay inay wadanka amnigiisa sugaan ay shabaab ka xoreeyaan inay shaqadoodu noqotay oo loo isticmaalay in lagu caburiyo dimuqraadiyadda shacabka waa nasiib darro inta leey dawlad dhiska Soomaaliya marka laga soo bilaabo dawladdan saddexaad xilligii carta ilaa maanta marxaladaha ay soo mareysay waxay ahaayeen wax is ogol ah doorashooyinku waxay Soomaaliya u yihiin dib u heshiisiin doorashooyinku waxay Soomaaliya u yihiin isafgarad doorashooyinku waxay Soomaaliya u yihiin hiigsi ay tiigsanayso inay marxalad labaad u gudbi doonto waayo qofka siyaasiga ah damcu ku jiro marka uu hiigsanayo inay doorasho jirto bari sanduuq la tagayo la waxaynayo waxa rajada galaysa ay tahay inayna iman karin wax kale oo qalalaasa ama qulqulata maanta dawladda xilligeedu dhamaaday iyo Xasan Sheekh oo teeramkii labaad maraya nin daa waxaad moodaa wixii oo dhan intuu iska dhaga tiray maanta wuxuu ka shaqeynayaa inay tahay wax taariikhda bog madow uu kaga tagi doono waxaan oran lahaa Xasanow dib u xusuuso Soomaaliya meesha soo martay dib u xusuuso inta aad soo joogtay xaaladdu maanta meesha ay taagan tahayna waxay u baahan tahay wax la isku ogaay baarinta Soomaaliya ku socon kartaa ma keeni karayso anaa idhi iyo xaalad noocaas waxba lagama samayn karayo nooca dawladnimada ee labada heer ah federaalka iyo dawladda dhexe dastuurkii 2012 dastuurkaasi wuxuu qorayaa shuruuc iyo wax la isku hageeyo iyo sida wadanku u dhaqmayo labada heer ee dawladood waxa ka dhaxeeyana waa la yaqaan waxa ka mid ah maandhood hadal aan dhageysanay Xasan oo leh ma aqoonsani iyo kan doorashada state-ka ka dhacaysa Jubbaland waa mid Jubbaland ba aqoonsi uga baahan tahay dadkeedana iska leh wax sharciyada oo dawladda dhexe kaga xidhan ma jirto haday noqoto waxaas ma aqoonsanayo waxa raacayo waxa weeye adiguna waxa lagu aqoonsanayaa sababta isaga oo maanta waqtigiisa dhamaaday teeramkiisii ka gudbay waxa uu maanta ku jira ay tahay xadgudub uu sameeynayo dib ha loogu soo noqdo gogasha talada dhulka hal la dhigo kor baan u haynayaa Soomaaliya meeshay gaarsiin oo noognahay intaas oo sareeyno dagaal sukeeyo ku jiray war dhiigley ma aha dawladnimada Soomaaliya hadduu qofku u arko inay xaafadda uu jooga ay u noqonayso dawladnimada Soomaaliya oo xukunku uu yahay xaafadda uu joogo oo xukunku uu mid yahay sax ma noqonayso Xasan waqtigu uu dhamaaday NF talada dhulka dhig